wariye Cabdicasiis Maxamuud Gurbiye oo ah taftiraha idaacadda Goobjoog oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo horjoojiyay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho. Hay'adda Human Rights Watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka ah Cabdicasiis Gurbiye kuwa aan sal lahayn. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray. wariye Cabdicasiis Gurbiye oo hore maxkamadda ku siitay qaab damaanad ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamadda gobolka Banaadir. Xafiiska xareynta ayaa ku soo eedeeyay laba qodob wariye Gurbiye kaas oo uskadeen faafinta warbaan abuur iyo ku xadgudub madaxeed. Qareenada u dooday wariye Gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi Cabdicasiis Gurbiye iyagoo sheegay in sharci loogu lahayn. Abukaata Daar Arab ayaa soo rabnay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyo wariye Gurbiye aan loo marin sifo sharciya wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo la horkeenay wariyaha. alxamdulillaah rabbil caalamiin aad u mahadsantihiin saakay waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay wariye Cabdicasiis Gurbiye maxkamadda la soo saaray aniga qareenada difaaca ay ahaynay eedii wariyaha loo heestay waxaan ka sameynay isturtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedeyn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadle ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. sidoo kaleeto waxaan sameynay isturtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. markii ay surtaaga sameeyeen xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay in arrintaas ayadu go'aan ka soo gaari doonto. waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo heesto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin dacwadaas la sii wadi karin. xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. sidaas ayaana muxuu ahaay maxkamaddu go'aan looga sugaa. ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogayaha guud ee Maxamed Ibrahim Macalimo ayaa la hadlay saxaafadda isagoo sheegay in qareenada u dooday wariye Gurbiye ay maanta ka hortageen sifo sharci darro oo la rabay lagu maxkamadeeyo wariye Gurbiye sida ay sheegeen. waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xeer ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbiye. runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawlid Mataan Salaad. saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadan aan rasmi ahayn oo aan la gali karin. taasaan taageersanahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. waxaa sidoo kale aan aad uga xunnahay qodobada la soo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye sababtoo ah horay madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. madaxweynaha soo saaray 3 May hadda ka soo tagnay. marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xiraalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo oo kamid ah qodobadaas horay outdated u ahaa ee dhacay ee horay madaxweynuhu u sheegay. marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad laha haba yaraatee ma laha. waxaan uga dambeynaa qareenada, waxaan uga dambeynaa cid walba oo sharci yaqaan, laakiin waxaan aaminsanahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad. qodobada la isku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. taasaan ku garab istaaganahay difaacayaasha wariyaha. waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareenada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto. go'aanka maxkamaddana waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo Cabdicasiis uu xor noqon doono, shaqadiisana uu xor u noqon doono. waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aan ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee. Cabdicasiis Gurbiye ayay hore u soo hortay dowladda Soomaaliya waxaase markii dambe qaab damaanad loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.